qofkay salaada casar dhaaftaa fakaannamaa wutira ahluhu wa maaluhu salaad casarkay dhaafta buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu la mid yahay qof dad iyo duunyaba hoogay. haddii nin masaajidkeenna ka tirsan aynu garanayno la yidhaahdo galabta reerkii iyo ciyaalkii iyo adduunkiisi iyo wixiisiiba baddaa liqday marka bay saaraayeenoo wixiiba baddayga liqday, inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun baynu wada odhan lahayn. aad baynu uga nexi lahayn, waayo ninkaasi masiibaa u soo hoyatay baynu odhan lahayn. dadkii iyo duunyadiiba way iska raaceen, labadiiba balaaya kaga wada dhacday baynu odhan lahayn. nabi moxamedna wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam salaada casar qofkay dhaafto waa fakaannamaa wutira ahluhu wa maaluhu, waa nin dad iyo duunyaba hoogay buu la mid yahay. idan ikhwatii fi lcaqiida musiibo kastoo kale agta waa fududahay. qur-aanka rabbi subxaanah wa tacaala wuxuu inugu tusaaleeyey mid aqoon la siiyey oo diinka wax ka fahmay oo dabeetana ka siibay oo nolosha kale ka doortay. ilaahay baa subxaanah wa tacaala markaa qisadiisa intuu soo arooriyey nebi maxamed amray inuu dadka u sheego oo weliba ku gebagabeeyo faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina baa ilahay yidhi waxaad dadka ku kor akhridaa warkii kii aanu aayaadkayaga wax ka siinay baa ilaahay yidhi. qof kasta oo mu'mina oo diin fahmay ilaahay aayaadkiisa wax laga siiyey. dabeetana haddaad diin dabadeed ridda kugu dhacdo ama diin dabadeed nuqsaani kugu dhacdo ama diin dabadeed aad diin la'aan u baxda waa balaayo. kaa warkiisa u akhri baa ilaahay yidhi fansalakha minha faatbacahu shayطaan fakana min alghaawiin. oo fansalakha ka siibmay baa ilaahay leeyahy. insilaaq waa haragga iyo maxay neefka marka la kala siibayo oo kale, kaannamaa diintu waa maca alfitra, waa kugu dhegsan tahay, waa fitra alla kugu abuuray. diin la'aanta markaad u sii baxaysa waad siibmaysaa, waad iska mudxinaysaa. ilaahay wuxuu leeyahy subxaanah wa tacaala kaanuu aayaadkayaga intaanu wax ka siinay dabeetana ka siibmay oo faatbacahu shayطaan, shayطaan dabagalay. shayطaan dabagalayda culimmada qaar baa waxay yidhaahdaan isagii baaba macallin noqonaya kani. haddaad aragto mid wadaad ahaan jiroo diinta ka tegey waa shaydaan rasmiya buu noqdaa, isagaa macallin ah. ibliiskaba isaga ibliis dee nin cilmi la unbuu ahaayo dabeetana diin la'aani ku dhacday, sacankaa maaha. waa caalim lumay ibliis. wadaad kitaab akhriyi jira oo kitaabka ka tegay haddaad aragto oo kolba baabka baatilkaa u furaya dadka, waa uun ibliis kalu noqonaya. shayddaamadu isagay sheekhba ka dhigtana way dabagalaan bay idhaahdaan. ama maahee qofku markuu diinta ka figayo waa inamaa yaakulu di'bu min alghanami alghaasiya, cidlu uga baxay jamaciyo jamaacaadkiiyo ummaddii diinta haysatay, dabeetana shayddaan baa isaga cagta u saaro ku daba jira. ilaahay wuxuu leeyahy fakana min alghaawiin, haawiintu ka mid noqday. daalliinta iyo haawiinta culammadu waxay dhahaan daalka waxaa la yidhaahdaa qofka lumay maca jahlihi, haawigu laakiin waxay yidhaahdaan waa maca cilmihi ka lumay, isagoo garanayay haddana derderaya dhinac maray, kaasaa haawiya bay yidhahdeen. ghawaaya waa taas bay yidhahdaan. ilaahay wuxuu leeyahy subxaanah wa tacaala walow shi'naa larafacnaahu biha walakinahu akhlada ila alardi waatabaca hawaah. ilaahay wuxuu leeyahy haddaanu rabno diinkaanu kor ugu yeelahay. diintu kor bay u qaadaa qofka, rabbigiibaabay ku xidhaysaaye. laakiin ilaahay wuxuu leeyahy subxaanah wa tacaala kani walakinahu akhlada ila alardi, isagaa dhulka kan badhuudhsado isku nabay. halkii kor loo qaadi lahaa ayuu dhiidhiga isku nabayaa, beerku dhulka ku hayaabaa ilahay leeyahy subxaanah wa tacaala. akhlada ila alard oo watabaca hawaah, naftiisu waxay doontuu raacay, sharcigu wixii uu amrayay buu diiday. bal kan tusaalihiisa u fiirso. rabbi wuxuu leeyahy subxaanah wa tacaala famahaluhu kamahali اlkalbi in taxmil calayhi yalhath aw tatruku yalhath. kani eyguu la mid yahay baa la yidhi. eygu hal mas'alo oo xayawaanka kaga gedisan yahay baa jira. xayawaanka kale marka la erye ama ay daalaan ama haraadaan bay haraariyoodaan. haraaryada sama taqaaniin ayay carabka laalaadiyaan oo neef kudiyaan. eyguse hadduu iska fadhiyana wuu haraariyoodaa, haddii la eryana wuu haraariyoodaa isagu.
isagu haraaryadu kuma tusayso inuu daalay ama raadan yahay ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala kani ay buu la mid yahay aygaa haddaad eridana wuu haraaryoon hadduu fadhiyana wuu haraaryoon kan waayo kani de isagoo diinta garanayuu dhinac maray haddii qur-aanka lagu akhriyana wuu haraaryoon haddii laga daayana wuu haraaryoon isagu mar kastaba isagu diin la'aan buu doortay xag wuu cararay marka aayaadku ma anfacayaan labadiisa xaalaba waa isku mid isagu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون بإلهي كاسوا تصالحي كوي آياتك إيجا بيني بإلهي دادك قصصك قرآنك كسو أروري أشيك بإلهي لي نبي محمد دادك أشيك قصصك كان waxay mudayin inay fakaraan bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga